madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay hable saraakiil ah oo ka tirsan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo loo sameeyay darajo dalacsiin kadib markii ay aqoontooda kororsadeen aqoontoodii waxbarashada ay kor u qaadeen taasoo dhiirigelin u ah ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha guud ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadhi dabagale iyo taliyaha ciidanka birmadka Soomaaliland gaashaanle sare Cabdi Axmed Tiir ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadiyay dadaalada wax ku oolka iyo kaalmooyinka kala duwan ee uu had iyo jeeraalo ku taageero madaxweynaha runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa talaabo aan qaadnay hadaan u maaratay aan noo hagar baxayn mar walba hadana madaxweynaha runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa inuu imika noo dalacsiyo saddex shakhsi oo nin sarkaal oo Ceerigaabo jooga iyo labadan hablood hablaha RRU-ga ciidanka booliska oo runtii shaqo badan qabta ee quruxdii booliska iyo sharaftii booliskana qayb weyn ka qaata labadii hablood ee digriga sitay ee jaamacad ka qalin jabiyay ayuu madaxweynuhu wuxuu u dalacsiiyay xidiglayaal madaxweyne waxaan kaaga mahadnaqaynaa maanta inaad ugu soo dhaweyso qasriga madaxtooyada aniga iyo qayb ka mid ah ciidankayga birmadka iyadoo hablahaygina la dalacsiiyey madaxtooyadiina lagu soo dhaweeyey sharaf bay noo tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hablahan saraakiisha ee ka tirsan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadiyay dadaalkooda aqooneed ee ay la yimaadeen iyo sida ay isku xilqaameen inay qarankooda u adeegaan dhinaca amnigana ay ka shaqeeyaan waxaan aad u soo dhaweynayaa hablaha ciidankan birmadka ka tirsan hawl badan aad baan soo dhaweynayaa horta waxa keentaan gabdho geesinimo qayr caadi ah wallaahi gabdho u bareeray oo voluntary habintaas ku qoray oo tababareedii dhameystay oo imanka ilaa sarkaal ka maraya oo ay ku hambalyeynayaan waxaan filayaa in qaar badan oo kalena wadadiina soo raaci doonaan maanta aan arkeen milaheeda inaad noqoteen mas'uuliyiin dalka dantiisa ka shaqeeya waxaan soo dhaweynayaa oo hambalyeynaya qoradiina dalaacday tacliinta sii wada sii kordhiya waana u ducaynaa hadii horumar badan sameysaan dhinac walba dumarku awood bay u leeyihiin ay dadka wax ku dhici kaga dhaadhiciyaan waliba iyaga dadka taagdarna uu maqlaya idinka wadi maqlaya marka waxaan ku soo dhaweynayaa habluhu inay booliska ku soo bataan inay nabadgelyada ka qayb qaataan inay cadaaladda takale waxa la aaminsan yahay inantu hadday kiis baadhaan inay ninka ka cadaalad badantay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka waramay waajibaadka shaqo ee ciidanka RRU-da jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaranka mas'uul uga yihiin ciidanka RRU wuxuu tababareeyay waa ciidanka ugu dambeeya nabadgelyada ilaaliya marka cudur kale soo dhaafo waajibaadka la barayna sidaan ku ogahay waxa weeye qofka muwaadinka qaldamay nabadgelyo dhibtu ku jirana ka qabo dad kale ayuu dhibinay isagana amnigiisa ilaali dadka uu dhibiyay waxaan ku jirana ka qabo waana arrinta adag waayo inanka yar caruur weerana hooyadii ku seexin waa kan askariga seexo hadii kale askari waa ku imanay rayga waa inuu bedelaa oo muddo soo jiray oo cilmi yar inaan booliska waxa cabsan laga dhigin ilmuhu iyo qofka taagdarna waa inuu dareemo markuu booliska arko inuu heer helay raygaasi wali mujtamaceena uu ku adkay marka waxaan baahanahay in dadka psychologigooda wax badan ka bedeshaa kelmadda policing original waa ilaaliya waa ilaaliya wuxuu ilaalinayaa qofka noloshiisa hantidiisa dadkiisa Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada